magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxaa lagu waabariistay ciidamada FBI-da oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga gudaha iyo sidoo kalena ciidamada gobolka Minnesota heer gobol iyo heer degmo oo baaritaano si wadajir ah ugu sameynaya goobo fara badan oo musuqmaasuq lagu tuhunsan yahay intooda badanna ay Soomaali leedahay. baaritaanadan FBI-da iyo saraakiisha ka tirsan wasaaradda amniga gudaha waxay sheegeen in ay wataan 22 waranti oo garsoore maxkamadeed oo soo ansixiyay waxaana lagu baarayaa goobo ganacsi oo intooda badan ay Soomaali leedahay. FBI-da waxay sheegeen in saraakiisha FBI-da kuwa federaalka ah sidoo kale kuwa gobolka iyo waliba kuwa degmada ay si wadajir ah baaritaankan ay u sameynayaan waxna qayb ka ahaa baaritaan dhinaca musuqmaasuqa oo socday. waxaa la baarayaa goobo child care goobaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo sidoo kale goob kale oo la yiri Somali Senior Center ayaa kamid ah goobaha baaritaanada lagu sameynayo Minneapolis iyo St. Paul ayayna ku yaalaan. FBI-du waxay sheegeen in baaritaankan uusan wax immigration la xiriirin oo uu musuqmaasuq la xiriiro. waxaan ognahay in gobolka Minnesota madaxweyne Trump uu in muddo ah dhahayay Soomaalida musuqmaasuq ballaaran ayay sameeyeen. wiilka cadaanka ee cunsuriga YouTuberka Nick Shadley dhamaadkii bishii December ee sanadkii 2025 ee dhamaadayna waa kii goobo daykeera inta tagay yiri goobahan waa iska xiran yihiin waqtiyadii loogu talagalay inay shaqeeyaan amaba kuwa furana wax caruur ah ma joogaan. daykeeradii qaarkoodna ay xirmeen. hadda goobaha la baaray waxaa kamid ah goobihii daykeerada ee videogiisa uu ku soo bandhigay. waxaa la arkayay saraakiisha FBI-da oo bokisyo ka soo bixinaya goobaha baaritaanada ay ku sameynayeen isla markaana iyagoo wata gawaari waaweyn goobahaasi saaka ay u daateen. marka ilaa iyo hadda baaritaano ayaa weli socda. ma jirto cid ilaa iyo hadda dacwad lagu soo ogay laakiin baaritaanadu markay dhammaadaan kadib ayaa laga yaabaa in dadka ku lugta leh dacwad lagu soo ogo. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa arintan ka hadlay bartiisa X ayuuna qoraalkan ku soo qoray oo waxa uu leeyahay saraakiisha federaalka iyo kuwa gobolka si wadajir ah ayay baaritaanadan ay u sameynayeen. natiijo wanaagsan ayaana ka soo baxaysa marka la iska kaashado la dagaalanka musuqmaasuqa. waxa uu yiri qofkii musuqmaasuq ka geysta gobolka Minnesota waa la soo qabanayaa cadaaladda ayaana la marinaya. ilaa iyo sanadkii 2021 dad ka badan 90 qof ayaa dacwado lagu soo ogay gobolka Minnesota oo musuqmaasuq kala duwan lagu soo eedeeyay. 67 kamid ah waxa intooda badan ay noqdeen kuwa ama dambi lagu helay amaba dambigooda qirtay. marka waan arki doonaa baaritaanadan u dambeeyay ee maanta 22 goobood ee kala duwan ee St. Paul iyo Minneapolis ku yaala oo intooda badan la leeyahay waa goobo ay Soomaali leeyihiin. kolay dacwadaha waan arki doonaa xilliga lagu soo ogo dadka musuqmaasuqan lagu helo inay ku lug leeyihiin. arrintaasi halkaasi haddii aan kaga gudbo shalay waxaa maxkamadda la soo taagay ninkii habeen hore weeraray goobtii xafladda ballaaran ay ka socotay oo madaxweyne Trump iyo mas'uuliyiinta dowladda ay joogeen oo ah hotelka Washington Hilton oo aan ka fogeyn aqalka cad. ninkan oo Cole Thomas Allen la yiraahdo isla markaana 30 jir ah ayaa waxaa la faahfaahiyay qaabkii uu u qorsheeyay weerarkan iyo cidda uu doonayay in uu dilo. ninkan hadda isku day dil ayaa shalay lagu soo oogay. ninkan waxaa la leeyahay 6 Abriil ayaa waxa uu 3 habeen ka kireystay Washington Hilton isla markaana sidoo kalena 21 bisha tareen waxa uu ka soo raacay magaalada Los Angeles kadibna Chicago ayuu ku tagay waxaana sidoo kale uu markaasi kadib yimid caasimadda Washington DC. jimcihii ayaa hotelka uu soo degay isla markaana habeennimadii Sabtida waa habeenkii weerarkan uu qorsheeyay in uu geysto. madaxweyne Trump iyo xaaskiisa waxay xaflad yimaadeen 2 saac iyo 15 daqiiqo markii ahayd. ninkana weerarkiisa waxa uu isku dayay inuu bilaabo 2 saac iyo 40 daqiiqo. ninkan waxaa la leeyahay 10 jaranjaro ayuu ka soo degay. waxa uu diidayay wiishka ama elevatorka inuu soo raaco. 10 jaranjaro ayuu ka soo degay oo hotelka uu leeyahay waxaana lagu istaajiyay tii u dambeysay markii uu doonayay in uu galo oo ciidamada Secret Service-ka markii xoog uu ku soo galay albaabka 5 xabadood ayay ku rideen ayaa la leeyahay laakiin mid kamid ah ma aysan ku dhicin. sidaas darteed ayaa lagu istaajiyay. hal jaranjaro ayaa u jirtay oo kaliya hoolka xafladdu ay ka socotay in uu galo. ninkan sidoo kale emailkiisa ayaa waxa uu ku programiyay waraaqda manifestada uu qoray oo familkiisa u dirayay
markii 2 saac iyo 40 daqiiqo ahayd in emailkaasi uu qoyskiisa uu gaaro. Emailkiisu markii uu qoyska gaaray kadibna waxay la xiriireen booliska oo 911 ayay waceen qoyskiisu waxayna u sheegeen in fariintaasi ay soo gaartay. Xilligaasi waaba xilliga qalalaasaha hoolka uu ka socday isla markaana ninkan xilligaasi gacanta ayaaba lagu hayay oo ciidamada ayaa gacanta ku dhigay. Emailkiisa waxaa ku qorneyd inuu doonayo in mas'uuliyiinta maamulka madaxweyne Trump kuwa u sarreeya ilaa iyo kuwa u hooseeya uu bartilmaameedsado cid kasta oo hor istaagtana in uu dilo in uu doonayay. Sidaas darteed ayaa marka xafladaasi oo 2600 dad ka badan ay joogeen uu isku dayay ninkan in uu madaxweynaha dilo isla markaana sidoo kale ilaa iyo 12 golaha wasiirada ayaa joogtay. Xitaa waxaa joogay afhayeenka aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka Mark Johnson oo sawirkan ka aragtaan markii lala sii cararayay. Shalay waxaa shir jaraa'id wasaaradda cadaaladda ku qabtay xeeralyaha Washington DC Jeanine Pirro, siihayaha xilka wasiirka cadaaladda Todd Blanche iyo agaasimaha FBI-da Kash Patel. Waxaana dhammaantoodba ay ka warrameen sida ninkan uu weerarkan u soo qorsheeyay. Haddaba waa tan Jeanine Pirro oo xeeralyaha Washington DC oo sheegaysa in ninkan qorshihiisu ahaa in uu madaxweyne Trump dilo isla markaana mas'uuliyiinta kale ee goobta joogtay uu dilo. Waxaana ay xaqiijisay in weerarkiisu uu ahaa mid qorshaysan. Ninkan sidoo kale waxaa la soo bandhigay qorigii uu watay oo aad aragtaan, bustooladii uu watay iyo weliba 3 mindi uu watayna sidoo kale waa la soo bandhigay. Haddaba waa tan Jeanine Pirro oo ka warbixinaysay sida ninkan uu qorshihiisu ahaa. Make no mistake, this was an attempted assassination of the President of the United States, with the defendant making clear what his intent was. And that intent was to bring down as many of the high-ranking cabinet officials as he could. He is very much aware that the President and the First Lady entered the ballroom at 8 p.m. And it was at 8:40 that he made a decision to rush the ballroom. And thank goodness, law enforcement, the Secret Service, was able to prevent him from getting into that ballroom. ninkan haddii dambiyadan lagu helo xabsi daa'in ayuu mutaysan karaa. Sidoo kale madaxweyne Trump waa kii hore u sheegay xafladda 30 maalmood gudahood in dib loo qaban doono. Marka haddii xafladda dib loo qabto madaxweyne ku-xigeenka hadda kama soo qaybgeli doono JD Vance sida aqalka cad uu sheegayo. Meel ammaan ah ayaa lagu hayn doonaa. Maxaa yeelay habeennimadii Sabtida madaxweyne ku-xigeenka iyo afhayeenka aqalka wakiiladaba goobta ayay joogeen. Saddexdoodu haddii ay wada dhiman lahaayeen macnaheedu lacala line of successionka waxaa xilka la wareegi lahaa Jack Grassley oo 92 jir ah isla markaana Iowa laga soo doorto aqalka sanadka ku jira isla markaana xisbiga aqlabiyadda aqalka sanadka haya qofka ugu weyn ah. Sidan ayay dhigayaan in xilka loola kala wareego haddii madaxweyne ku-xigeenka iyo afhayeenka aqalka wakiilada amaba ay iscasilaan amaba ay dhintaan amaba sidoo kalena xilka qaadis lagu sameeyo ama Congress-ka laga saaro xubnaha gaar ahaan afhayeenka aqalka wakiilada. Marka waxaa la leeyahay maadaama arrintaasi habeennimadii Sabtida ay dhici gaartay oo mas'uuliyiintii xilka la kala wareegi lahaa sida uu dhigayo dastuurka isla markaana sharciga la sameeyo oo ah Presidential Succession Act 1947 uu dhigayo sida wasaaradaha dowladda ay u kala horeeyeen sameyntooda ay xilku la kala wareegayaan ayaa hadda waxa la leeyahay madaxweyne ku-xigeenka haddii xafladda dib loo qabto 30 maalmood gudahood kama soo qaybgali doono laakiin madaxweynaha waa uu imaanaya. marka arrimahaas ayaan rabay inaan idila socodsiiyo asxaabay. aad iyo aad u mahadsantiin intaan mar kale kulmi doono. waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.